بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال صاحب يال هالكني وبرتان كلنا هاي يوتيوب كنا يصيروا كلا برتين فيسبوك إقرنك تيفي فلان هدي كوتا مركي كوجو رسي برهنا كلا جدسن سبسكرايب تا يفولو ده أو صورة سيدو كلا نصيفة في مقال كان داود يال واتها مقال كان وحنا ودي كسب بندقينا xubno kamid ah dhalinyaradi uu Muuse Biixi Cabdi halaagay isla markaana intuu baabuurta ku soo daldalay reer guryahood inay ku duulaan oo amray una bogaadiyay isagoo oo sheegay inuu difaacayo xariiq uu gaal dhigay oo uusan markaasi reason la garan karo uusan ku soo weerarin dadka dhulkooda ayaa waxay qaarkood la kulmeen dhacdooyin xanuun badan waxa xusid mudan dhalinyarada Soomaaliyeed oo soo khalday oo dhintay dagaalka qaarkood in meedadkoodii laga cararay xubno aad u badan loogana cararay goobihii furimaha ahaa waxa xusid mudan daawadayaal in waraabe ama dhurwaa bahalka loo yaqaan oo ah mid kamid ah bahalada halista ah ee xoolahana qaada sidoo kalena dadka laftigooda cuna walow uu inta badan ka cabsado dadka uu markaasi baabah ka dhigay meedadkii askartii Soomaaliland الحمادة يدق حمادة داود يال يصيروا كلا سوورة يمقالة للسوق هذا يكرتي ود معهن كوان هالك هذي كله وداقي كرنه ما دام هاي نلير صوماليات لكن على الحمادة وحكوا فلان سوور كان أدو جدان وغيب كم إذا اللق باقي كا لفيه يصيروا كلا ميدت كي وعني رواجة قبل كاسول أما دولك النجاشة كنول كاس أو بابه كدجي ميدت فرمها أوجع عرين عيد كمام لك الصومالي لان تاني واحد كتوصيسا halista iyo sidoo kale dhibaatada iyo ilxumada uu reebay dagaalkan muddada 4 bilood ku dhawaadka ka soconayay duleedka magaalada Laascaanood waa taliska aaga Goojacada iyo sidoo kale Maraaga waxa kale oo xusid mudan arxan darada Muuse Biixi Cabdi oo wiilashiisa gabi ahaanba ay ku sugan yihiin qaarkood wadanka dibadiisa kuwa kalena igu sawir buuro ka fog meesha la isku dagaalayo intay maalin ku soo galeen durbaba ku cararay Hargeysa halka inamadii kale oo Soomaaliyeed ama dhalinyar kale oo Soomaaliyeed oo hooyooyin ay dhaleen reerayow ay tirsanayeen ama faamilo ay xisaabsanayeen intuu soo qaaday oo u dhigay waraabaha dhowr fariimood ayaynu halkan ka dari doonaa fariinta koowaad waxaan u diraynaa ninka dhalinyarada ah ee inta la soo khaldo baadilka ku dhimanaya ee aakhirana su'aasheeda la kulmi doona ee dhibaatada la kulmaya ee haddana foolxumadu ay ku dhacayso oo ugu yaraan meydkiisa xataa inta aan la qaadin aan la asturayn hase yeeshee waraabe uu cuni doono quudad doono sidii neef baqti ah oo meel looga cararay oo kale fadlan ka fiirso oo haddii aad ku sugan tahay magaaladaada iyo goobtaada adigoo nabad ah yana ku qaadin gardarro cadiifad iyo sidoo kale wax aan hadhow adiga waxba ku tiri doonin adigoo waliba haddii aad dhaawacantana faamilkaaga iyo guryahaaga iyo qoysaskaaga dhibaato ku noqon doona haddii aad dhimatana uu ku sugayo waraabaha nugaaleed waxaanu ku leenahay ka joog oo ha isku aadin meelahan halistu ay ka taagan tahay kii ku sugan waxaan ku leeyahay lafahaaga saad ula baxsan lahayd ula baxso taasi waa digniin guud oo aynu dirayno ciidamada uu soo khalday Muuse Biixi Cabdi midda labaad waa dadka deegaanka fadlan meydku xuquuq ayuu leeyahay marka koowaad inkastoo la isdilayo oo aanu u jeedno dadka deegaanka in laga gardaran yahay duulimaad lagu soo qaaday dumarkoodii iyo carruurtoodii maanta doox lagu sameeyay la baabiyay la xasuuqay magaalooyinkoodii la duqeeyay nooc walba loo dhibaateeyay haddana fadlan meydka iska astura meydku xuquuq ayuu leeyahay qof markuu dhinto waa marxuum meydku xuquuq ayuu leeyahay meedadka astura mideeda kale inay dhalinyar Soomaaliyeed yihiin haylaawinaha mideeda labaad ama mideeda saddexaadna dhurwaagan meedadkeedu ku baranaya iyo cunitaanka hilibka dadka wuxuu hadhow qaadan doonaa ciyaalada yarka ee xoolaha iyo ariga la joogay waxaraha taana waxay ku keeni doontaa aafa aad u weyn fadlan saddexda arinba inay Soomaali yihiin inay Islaam yihiin iyo sidoo kale in dhurwaagu idinku baran doono hilibkaas iyo in aad markaasi meedku xuquuq u leeyahay oo hadduu gaal iyo muslim yahay inta xuquuq u leeyahay intaas boo astura carruurta ay u jeedaa waa qaybo kamid ah ciyaalka Muuse Biixi Cabdi oo midkiiba uu la egyahay labo qof isla markaana ku naaxay xoolihii ummadda ka dhaxaysay ee ay iska daliiqayeen halka dhalinyar kale oo caataana ay ku soo daldalayaan furinta haddaba dagaaladii ugu adkaa ayaa haatan laga cabsi qabaa oo faanoole farikamo qodna ay leeyihiin dadka helaadiya amaba sidoo kale isha ku haya arimahan waxaana laga cabsi qabaa ayaa la leeyahay dagaaladii ugu adkaa inay dhacaan maadaama Muuse Biixi Cabdi aqligiisii uu noqday aqli aan raali ka ahayn in dadka deegaanka dhulkooda uga baxo oo gardaradii aabigii iyo kibirkii iyo markaasi wax ismoodsiintii horay uu u eeday uu ku sii taagan yahay oo uu maadaama aysan waxba ka galin waxa dhimanaya isagu arinta kaliya u jeedo waa inuu mudukororsi iyo kursigiisa inuu sii jiito cumri dheersi sameeyo dadka inuu intuu soo cabeeyo dhoo xuduud ayaa difaacanaysan oo xuduudda
xuduudda haddii xataa xuduuda ay meesha martay ma adiga xuduudda lagu siiyey ma adaa dadka degan iskale ma adaa dadka deegaanka iskale ma adaa dalka iskale su'aalaha dadku ay inay isweydiiyaan ay ahayd waa taas midka daalimka ku diriraya haddii uu dhintana ehlu naarka ah ee waxa weeyaan dad mansabkoodii maalkoodii nasabkoodii cirdigoodii sharaftoodii iyo gurihoodii kusoo duulay markii uu dhintana sidaas silaca waraabaha uu cunayo oo looga cararayo meydkiisa in uu ku waantoobo arrintaas ay tahay waxaad moodaa dadkii gacmaha qaban lahaa haddii ahaaleed waalidiintu inamadan dhalay iyo dadkii markaasi arrintan warka joogso dhihi lahaa qaar badan oo kamid ah inay kula safan yihiin marka laga yimaado beesha garxajis oo marar badan iyadu mowqifkeeda cadaysay haddii yihiin ismada dhaqanka sheegayna in dhibaatadan laascaanood lagu hayo ee ahayd mid loo soo waday way iska cadahay oo Muuse Biixi Cabdi waxa ugu weyn ee dagaalkan uu galay waa muddo kororsi waxa ugu weyn ee laascaanood uu markaasi dadka badan ugu laayay si kacdoon uu qarxo dagaalkana uu horiyay waa muddo kororsi iyo cilmi jiidis qof kasta oo caqli leh taa uu og yahay waana siyaasiyiinta Soomaaliyeed badan qaar badan ayaa sameeyay marka muddadu ay dhamaato inay abaabulaan dagaalo oo manaxyaasha oo dhan dadka aan aakhire iyo ilaahay aan toonna aan ku xisaabtamayn ayaa inta badan waxay sameeyaan isku daadinta dhiig dhalinyar Soomaaliyeed oo aan markaasi oo curdun ah iyadoo oo waliba intooda badan rag waxa dhiiga isku daadinaya yihiin rag daa oo cumri ah oo noloshooda soo qaatay laakiin muhiimaddu waxay tahay dadka RSC iyagu wali waxay leeyihiin faanoole fari kama qodna waxay diyaar u yihiin in ay boqolaal iyo kumanaan ay ku dhintaan iyaga ah in ay ku dhintaan difaaca ciidooda iyo dalkooda waxayna rumaysan yihiin dadka u soo hari doona inay yihiin waxayna sameynayaan xaraga dagaalan wax loogu yeeray oo iyaga oo runtii dhan walba amood inay ka dhisan yihiin isla markaana gurmadka iyo hamuunta iyo niyadda dadkooda u hayaan sida ay ugu heelan yihiin dagaalka xoolaha iyo geela la keenayo iyo ariga iyo lo'da iyo sidoo ay raahday geela iyo ariga la keenayo loo keenayo ciidanka dhaqaalaha markaas qof walba oo aad moodo inuu si iskiis isku xilqaamayo iyo dadaalada ay wadaan marka aad fiirisid iyo garaadadooda oo waliba hadlay intaba waxay ku tusinaysaa inay markan isku diyaarinayaan dagaaladii ugu dambeeyay ee ay kaga farxalanayaan ciidanka maamulka Soomaaliland ee wali ku sugan territory-ga maamulka Khaatumo ama dadka deegaanada SSC SSC ayaa iyagu hadda isku diyaarinaya gulufyadii ugu weynaa oo ay markaasi ciidamadani kaga jafi lahaayeen deegaanka intii ay ku sugan yihiin halka Muuse Biixi Cabdi oo isagu hadda dhaqaale ahaan iyo sidoo kale cadaadis beesha caalamka ah mashaariicdii iyo gabi ahaanba wixii dhaqaale ahaa ee Soomaaliland sii jiray in laga jarto ayaa lagu dhawaaqay oo meelaha qaarkood waaba way joojiyeen wadamada qaarkood wixii ay sii jireen ogoobay mashaariicdii lacagtooda ayaa markii sanaadiiqdii ay maratay lacagtii mashaariicda ayaa hadda waxa loo soo weeciyay in markaasi dadka lagu markaasi dagaalka lagu geliyo oo tolay xataa ciidan isiyo baa ka dhacday heerka uu marayo xaalka Soomaaliland barida ayaa dhulka loogu dhuftay ay leeyihiin sidoo kale Muuse Biixi Cabdi ma miirsan doona ay leeyihiin dadka dabeecadda yaqaana ilaa guuldarada ugu dambaysa kharaarkeeda uu dhadhamiyo isla markaana dharbaaxooyin kulul uu kala kulmo ciidamada deegaanada SSC iyo garaadadooda sida oo aragtid muuqaalka si faafi tan iyo warkiisa xigay sida ay nabadgelyo